khudbadii ugu dambeysay ee uu Generaal Maxamed Siyaad Barre u jeedsho inta aysan dagaaladu ku fidin magaalada Muqdisho isagoo u sii mariyay raadiyo Muqdisho xilligaasi ayaa waxa uu madaxweyne Jaalle Siyaad shacabka reer Muqdisho kula dardaarmay in ay san ka qayb qaadan balaqada xooga badan ee ka socota qaybo kamida magaalada Muqdisho hadba khudbadan oo ahayd tii ugu dambeysay ee uu shacabka reer Muqdisho kula hadlayay tahay hadal badan oo wax ma tare waxaan ku soo celinayaa khudbadii ayaan wada aqriyay oo aan uga jeedo in aynu garanno danteenu waxay tahay inaan garanno waxaynu nahay inaan isku eegno muraayada oo aragno horta kuwa wajigeenu waa kuma maxaanse doonaynaa danteenu waa maxa danta ilmaheenu waa maxa danta dadkeenu waa maxa danta sharafkeena adduunku waa maxa waxaan hadalkaa u leeyahay dhowr arrimood dartood xabadda dhacaysa ninna danu maaha wiil bay dishay wiil ma koriso nin ladan oo ama ajnabi jooga ama dalkaba jooga inuu dadka masaakiinta ku laaya xabad maaha isugu dhiibo waxa ka sii xun kuwa sida foosh xun wax u beelqaysanay waxaan la yaabsanahay ninka inta xafiiska dawlad galay warqadii tuuraay oo dariiq ku daadi xagee buu socda muxuu ka helaya yuusuf siinay warqadaas yani macnaheedu waxa weeye wuxuu awood u waayay inuu muxuu ahaa inta warqa qaado oo ajnabi u geeyo macnaheedu waxa weeye suuqa ka garto uga jeeda waxa ka sii xun dadka masaakiinta oo inta xabadii lagu weerariyay iyo boobki iyo wixii sii qaxayo gaashada la qaxaya oo jidka daadsan ma dhaba loo furo xabar laga baxa waxa daadsan dad masaakiin oo sii guuraya waxa aan leenahay war dad guuriyooda u daayay hayriine ka daaya xabadii qaylada iyo boobka iyo qunug waxa ka foosho ka daaya dad islaamaati Soomaali baati sharaf iyo karaamad lahan jirtay wayna wada xorine almiina wax xoogaa dad iska xortay kulli xorine hatta inaad gaartaan heer aad islaamnimada ka baxdaan waa xaraan waxa loo baahan yahay inaad aqli yeelataan oo aad garataan ilaahay aqli wuxuu inoo siiyay iyo maskaxda inaynu ku fakarno oo ilaahay inoo siiyay qalbiga wuxuu inoo siiyay inaan ku naxariisano wixii naxariis mudan inaan naxariisino waxaan leenahay dadkaas masaakiinta oo iyagu aan carabi karin oo caruurta oo odayaalka oo habraha oo haweenka diinta dadinaysan ka daay iyagana waxa loo baahan yahay in inta iimaanka qabaan ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii dhimanaya meel uu kaga baxsanay ma jiro ina guriyooda joogan aan ka carabin Somali Fan TV subscribe inkastoo wax badan aan ka hadlay arrintan annaka kala taliyay shacbiga Soomaaliyeed dhibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay laga maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinahay shacbiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaan oo faa'iido u keenayo inuu jirin tan labaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobka iyo bilaqaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka foolxun ma jira guryaha la dhacaya guryaha laga qaadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamada la jabsanaya arrin foolxun weeye aad iyo aad u foolxun arrintaas waan ka hadlay hadda kahor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xalaaleysanayo qof aan waxba qabin oo Soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer qof ay u banaantahay ma jirto waxaan u jeedinayaa shacbiga Soomaaliyeed inay ka wantoobaan arrintaas tan kaleeto waxay la tahay nin walba og yahay baahi badan baa jirta baahidan hadda ka hor baan oran jiray biyo sacbadaada looga dhigay haddaynaan u jeesanan intaanu xabadda iskula jeedno inaan dalkeena wax ka soo saarno waan ogtiin in laga soo saari karo beeraha laga soo saari karo badda laga soo saari karo xoolaha laga soo saari karo haddaynaan xagga u jeesan ee aynu inagu isku jeedno waxaa iman doontaa ayaanu in la socono haddee markabkii jino oo la sugu jiray waxaad moodaa inaanu markaanu qaldaad samaynay inayan isagana waxba ku soo soconin marka soo beerahayna iyo baddayna iyo xoolahayna isma u dhana waxaa loo baahan yahay halkaas in loo leexdo oo fidnadana laga baxo khayr ku jira fidnada ma jirto khariya adduuntoona aad baan ugu celcelinayaa aniga oo runtii ka urxun inaan hadda ka hor 100 goor inta ka hadlay haddana aad moodo inaan cudurka jira u siin haddana waan ku xajinaya waan ku celcelinayaa inay u dhaqaaqaan inay beerahooda fashaan badooda ka kalluunsadaan xoolahooda dhaqdaan dhibaatada tan ka baxaan dagaalka xabadana ay joojiyaan baan aad iyo aad ugu adkeynaya arrimaha kan matalan dadka saddex doonka waxaan kula talinayaa arrintaas waa la hayaa lagamana bixin
weliba waa lagu jira waan la gaari doonaa matalan ka soo qaad ninkii maxamed siyaad hadduu meesha ka kacan waa nabad baan qaadanaya maxamed siyaad meesha fadhihi maayo waa ka tegaya laakiin waxaan rajaynayaa bal marka hore dilka iyo fidnada inay joojisaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu noo aqbalo waxaan weydiisanay khudbadii ugu dambeysay ee uu jenaraal maxamed siyaad barre